waxaan u dirayaa dadka dulmanayaasha oo sheeganaya inay mas'uuliyiinta baarlamaanka wax ku yeeshaan inay wax ku yeeshaan oo wax laga siiyo waan u hambalyeynaya oo cibaadaysta baan leeyahay odaygu anigu waxaan qabaa doorasho booba oo qof iyo coda waxaan u arkay inay khaldan tahay shacabweynaha ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Garowe ayaa mikrofoonka la dhex qaadnay Dalxa Media iyadoo wax ka weydiinay dastuurka ay fureen golaha baarlamaanka iyadoo ay 20kii bishii hore ee la soo dhaafay oo dhacay dagaal qalalaasa geystay oo ka dhashay dastuurka iyadoo ay Puntland u dareeday loona jeeyay inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda waa sidee aragtida dadweynaha magaalada Garowe waa kuwan iyagoo ka aragti dhibtay tirada baarlamaanka in la kordhiyo uma arko wax sharci ah waxaan bananay moorka inta hore maar loo waay kuwii hore maar loo waay haddii la badiyo dhibaato la badiyo way saasa warkaan maxaa saaq muse waa barnaamij aad u fiican weeye waa soo dhaweynaa waa ku faraxsanahay maadaama aan anagu gacanta ku dooranayno qofka matalaya masiirka oo gacanta ku jiro oo lagu soo celiyay shacabka lagu soo celiyay soo doorto waa arrin aad u fiican weeye waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdilaahi Deni madaxweyne aad baa u mahadsantahay maadaama aad noo soo celisay masiirka noo soo celisay aad baa ugu mahadsantahay waana soo dhaweynayaa baarlamaankana aad baa u mahadsan yihiin bismillaah magacaygu waa Shukri Ali Maxamed doorasho qof iyo coda inay ka dhacdo Puntland aniga shakhsi ahaantayda waa ku faraxsanahay waxaan u arkaa horumar iyo higsi ay gaartay dowladda Puntland kuwa ka soo horjeeda doorashada waxa fariin oo u diray waxaan leeyahay waxa tihiin siyaasiyiinta Puntland waxa kale oo tihiin dadka kamid ah shacabka bulshada waxa kale oo fariin oo u diray wax walba in isfahan lagu dhameeyo maadaama wax ka dagaal iyo qarashac wax lagu dhigan karo isfahan lagu dhameeyo dowladda iyo mucaaradku in isfahmaan oo wax kasta nabad lagu dhameeyo sidoo dhici jiray aadan maxamed cali weeyaan taleex baariya horta idinku dhalinyarahtiin sideeda banaanba laba wax oo la isag dhigo maaha Soomaaliya garan 66 taagan oo 25 sanadood waxay u codeeyeen waxay ka codeeyeen midna aadan garanayn laguguna matalayo wax coda iyo wax taakula aad ku leedahay ay jirin la isma agdhigi karo bar kasta anigu waxaan soo dhaweynayaa dadku inuu codkiisa dhiibto xorno yahay oo uu og yahay waxa uu doortay iyo waxa uu diiday waxaan soo dhaweynayaa nidaamka qof iyo coda baan soo dhaweynayaa 100% kuna kalsoonahay Puntland sharciga iyo dastuurka u yaal xal buu ahaa ma ahayn sharci ma ahayn dal burburay oo kala tagay iyo dad kala tagay baa la isu soo dhaweynayay xal buu ahaa mar hore haydin laga gudbo dad baa ku dulman dadna dawladda u dhisan Soomaaliya garan xaq bay waxay u leeyihiin dadka furimaha ku dhimanaya baarlamaankana wax ku lahayn inay wax ka yeelaan oo ay dadka ka mid noqdaan waxaan u dirayaa dadka dulmanayaasha oo sheeganaya inay mas'uuliyiinta baarlamaanka wax ku yeeshaan inay wax ku yeeshaan oo wax laga siiyo dadweynahana waxaan leeyahay codkiina iimaansada waa guul weyn baan leeyahay in aanu doorasho cod iyo qof loo dareero magaalada Puntland looga dareero guul aad weyn baan leeyahay cid diidana waxaan leeyahay nidaam sax weeyaan nidaamka saxda inaad la aragtaan dadka isku dayabaan leh bismillaah magacaygu waa Firdawsa Abshir Maxamed waxa kamid ah shacabweynaha Puntland dhalinyarada ku nool magaalada caasimadda Garowe doorashada qof iyo codka waa soo dhaweynaa anagu hadaan dhalinyarada caasimadda ama dhalinyarada reer Puntland waxay noo tahay fursad aad u weyn oo inaan horumar ku talaabsano oo u gudubno horumar doorasho dimuqraadiyadda wax badan baa sugayna waa soo dhaweynaa waxa kaliya ku darsanna soo dhaweynaa in doorashada waqtigeeda ay sadhaafin oo si xor iyo xalaal ah ku dhacdo amniga caasimadda aad loogu dadaalo aan ku soo jeensaday doorashada waxaan leenahay shacabka reer Puntland baa kamid yihiin ummadda reer Puntland baa matashaan doorashada waqtigeeda ma dhaafayso ku soo darsama oo xisbiya samaysta oo boorarka soo dhigsada waa la taageerayaa waa la soo dhaweynayaa waxa ka hadlayaa heshiiska ka soo baxay dawladda iyo waxa weeye qoliyaha mucaaradka iyo istimada waa hambalyeynaya go'aankii quruxda badnaa oo dawladda ay qaatay baarlamaanku ay qaateen wax ka beddelkay dastuurka codsiintii shacabka aad baan u hambalyeynaya waana taageeraynaa in doorasho qof iyo coda saddex degmo doorashada ka harsan in la dhameystiro madaxweynaha iyo baarlamaanka lagu soo doorto doorasho qof iyo coda oo baarlamaanka ay waxa weeye bulshada ay siiyaan kalsoonida ay siiyaan oo dadku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan oo uusan ku soo bixinin waxa weeye jujuub iyo qabiil uusan ku soo bixinin qofku uu doorasho qof iyo coda ku soo baxo aad iyo aad baan u hambalyeynaa dawladana waa taageeraynaa waana garab taaganahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin waa Maryam Cabdisalaam
doorashada qof iyo cod waa soo dhaweynayaa waxaana ka codsanayaa madaxda dalka xukunta inay si nabad ku dhacdo oo xasilooniya annagu haddaan reer garow nahay doorashada qof iyo cod diyaar baa u nahay shacabku waxaan dhahaynaa idinkuna dadkiina isku soo raaco tartama madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu doorashada si nabad noogu qabto amniga noo saxo caasimadda bilicdeeda iyo ilaal khalkhalka ka ilaaliyo asaga wadanka madaxweyne ka asagaana matala wax walba inuu nabad ku dhameeyaan ka codsanaynaa annagu haddaan nahay shacabka reer garow horta mucaarad iyo muxaafid way ka leeyihiin dowladdu waana loo baahan yahay laakiin de ma ahan haddii mucaarad noqotid in dee waqtiga mataqaanaa aad dastuurka burburisid ama mataqaanaa burburisid dowladnimadii ama se dagaal aa qaadaa waatad wax kasta dagaal ba ku qabsanaya adduunkana dee meel dagaal lagu qabsadaa ma jirto oo wax kasta heshiis iyo saafigarad bay ku dhammaadaan dee waxaan leeyahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin wax kasta waxaa ka horreeya masiirka dalka iyo dadkaba in laga taliyo hadda ayd January-na waa muqadas waxaan rajaynayaa doorashadu inaysan waqtigeeda dhaafin waa soo dhaweynayaa in horta Puntland la wada yeesho oo la wada lahaado xildhibaanada qolo walba ay wax ku yeelato ma garad laakiin haddeer waxa taagan wax badan baa la isku hayaa xildhibaanaduna waqtigooda maandheedkooda wax yar baa u hariyay dawladdan waqtigan joogta waxaan rajaynayaa ayd January inay muqadas noqoto oo aysan doorashada waqti loogu talagalay aysan dhaafin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan wayna salaamaya. Waxaan halkan ka salaamayaa dawladda iyo isimada iyo waxgaradka iyo cuqaashta iyo arrinta lagu jiray ee heshiiskii dhacay. Aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay bulshada. Arrintaa waana taageersanahay. Heshiisna waxa raadinayna weeye oo ugu dhacay alxamdulillah. Awal wadanku wuxuu ahaa parliamentary wuxuuna noqday dimuqraadi aad baana ma garanaysaa loo daneynayay codka shacabkana ayayna saas ku noqotay isimadii waxgaradkana waxay soo saareen way ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa dimuqraadigaas ay dawladdu noqotay shacabkuna ku faraxsan yahay in lagu qanco laguna heshiiyo heshiiska waa dhacay sidaas ayayna ahaanaysaa waana la codaynaya degmooyinka saddexda ay dhimanna waxaan rajaynaynaa in insha Allah iyaguna laga codayn doono waxaan u arkaa khalad weyn baan u arkaa in maanta Puntland say ku socotay wax ka bedel lagu sameeyo la inkiro abayaashii hore wax sameeyay oo macnaha dastuurka dajiyay in dastuurkooda khaladaad loo keeno khalad loo fahmay wax laga bedelo khalad weyn baan u arkaa dadka bedelayna aad baan u dhaleecaynaya dadku u dareerana madaxweyne iyo doortoonin iyo baarlamaanka aad bay u khaldan tahay waa khalad weyn bay la tahay waxaan ku qanacsanahay 66 xildhibaan iyo baashu tarahay u socotay sanadkan anaala in la xoogana uma baahni bismillaahir rahmaanir rahiim anigu doorashada qof iyo cod waa soo dhaweynayaa aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay dhalinyaradana fursad qaali ah buu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani u sameeyay waana horumar la gaaray 25 sano kadib dadku inay madaxweynahooda iyo gudoomiyahooda baarlamaanka iyo xildhibaanadooda ay doortaan aad baa u soo dhaweynaya dhalinyartana waxaan leeyahay fursadda ka faa'iideysta sidoo kale qoliyaha mucaaradka oo qoliyaha qaata oo dadka dhibana waxaan leeyahay xisbiyada hadeertaan furta baarlamaanka ku tartama madaxweynaha ku tartama waana in soo dhaweynaa dhamaantiin waana mahadsantiin